السلام عليكم ورحمة الله. صاحبي هل كسر وادي channel كيسم جروبيس. أنا قلنا هاي صاحبكنا. أنا صاحبي المقال كان معناته وحنا نقول دونا سدا لقوه له سبسكرايب في مالي بدن. كنت يعني أنت أيضا أمس موضوع وح يقول لي مركي أنا ركي طبعا إن كومنتيه بدن أمس كنا الله يعني كومنتيه ده almost وانا خيا مركا أنا قول يعني مقالس كده داونا يا وحنا الكومنتيه بدنا فضلا سبسكرايب بسار فضلا إن يعني هديت يعني waxnu caasa hadda nabi jeceshay like subscribe marka saaxib yeel markii aan arkay kulay Soomaali ahaan dhifta naga tagay subscriberska maadaama aan haysan idea ama fikradii aan yani ku gubcin subscriberskana markii ogaaday walaalahayga sirta ka maqan ama fikrada ka maqan ayaan waxaan jeclaystay in muuqaalkan soo gudbiyo saaxib yeel sida caadiga intayna muuqaalkan gudaha galin صاحبي المقال كان انه لايك صارنا sidoo kale commentiga wixii ra'yiga waan uga cabir kartaa sidoo kale saaxiib yaal hadii naga shaqeyn subscribe channel kana waxaan uga hadlaa waxyaabo ku saabsan teknolojiyada sida mobilska sidoo kale farsamooyinka WhatsApp-ka farsamooyinka Facebook-ga sidoo kale tusiraha ku cusub YouTube-ka updates-ka waxyaabo soo kusoo gudbinaa okay sida caadada commentiyada ayaan soo qaadanayay muuqaalka horeeyay waxaan soo qaatay commentiyo sidoo kale maanta waxaan soo qaadanaa walaalaha ku xiran channel-kayga commentiyada ay ka soo bixiyeen sidoo kale ayaan soo qaadan doonaa waa kuwana saaxiibayaal commentiyada aad ka bixiseen videoga ugu dambeeyay saaxiibayaal aad u maasantiin runtii waxaad tihiin runtii yani dad qalbi furan commentiyada ayaan ka arkayaa saaxiibayaal marka waan soo qaadan doonaa commentiyada maalmahani mise muuqaalada dambe commentiyada waa soo qaadanaya marka maanta intan ayaa soo qaatay saaxiibayaal okay haddaba saaxiibayaal muuqaalkan wuxuu yahay sida lagu helo subscribers badan waxaan filayaa maanta muuqaalkan inuu yahay saaxiibayaal muuqaalkaaga haddii aad tahay YouTuber misna kamid ah dadka commentiyada ku qora fadlan subscribe la saaro waayahay haddaba waayahay saddex qodob oo kaliya ayaad ku heli kartaa subscribers badan ama se dad ku daawada okay qodobka waad xuyaan ku dadaal tayada muuqaalka aad dhigayso runtii yani aad ayuu wacan tahay taasi ku dadaal tayada muuqaalka dhigayso yani laguma dhahayo waa inaad ku duubta yani kamerad qaali ah waa inaad isticmaashaa laptops software edit no taasi kuma oranaya laakiin waxaan ku oranayaa inta yani tayadaada ah ama inta yani kartidaada ah waa inaad record gareysaa ama edit gareysaa muuqaal tayo leh sidoo kale aad isticmaashaa muuqaal markaas aad ku sidaashii qodobka labaad ka hadal mawduuc xasaasi ah yani ka hadal mawduuc markaas jira ama markaas yani cusub oo ay dadku hadal hayaan tusaale haddii aad tahay dadka ka hadla wararka tusaalaan yani soo jeediyo wararka always marka waxa laga baahan yahay in wax kasta oo update ka ah dunidani inaad nala socodsiin karto يعني tusaalaan maanta oo kale barnaamij ayaa dhacay ama si qof ayaa yani shay wax ku dhaceen marka waxa la rabaa in waxa si tafatiran oo macquul ah aad uga hadli karto taasina runtii yani waxay ka saacidaysaa in ay YouTubers kale ay yani dadku yani ka jeclaadaan in aad noqoto YouTuber-ka yani dadku ay ugu hadalanta badan yihiin qodobka saddexaad ugu dambeeyay saaxiibayaal xawayaan yani ugu muhiimsan soo gudbi muuqaalo badan laakiin oo waxtar leh يعني soo gudbi muuqaalo badan oo waxtar leh aad ay muhiim tahay runtii yani aad fudud in la soo gudbiyo muuqaalo badan laakiin se waxa adag in la soo gudbiyo muuqaalo badan laakiin waxtar leh dadka marka la yiraahdo muuqaalo badan soo gudbi taa waxay sameeyaan iska record gareeya ama sadubaan ka bacdin khalaas hore ka soo galiyaan laakiin saaxiibayaal taas laga wacan yahay duub soo gudbi 3 iyo 4 isbuuci oo laakiin tayadooda ay tahay in tabartaada yani aad ka shaqeysay ma aha muuqaal kasta iska soo gal laakiin muuqaalo 3 iyo 4 oo yani tayadoodu sareyso misna xasaasi ah misna yani adigu aad hubto in muuqaaladan ay yihiin muuqaalo waxtar leh ee aad ku soo diyaashay marka saaxiibayaal waxaan filayaa inaad ka hesheen saddexda qodob yani aan soo gudbinay haddii saddexda qodob mid kamid ah uu ka anfacay ama ay ku wada anfaceen muuqaalka like saar sidoo kale commentiga inoo reeb wixii fikirkaaga ama saddexda qodob aad ka qabto waa saaxiibkiina oo kale muuqaalkan inta ku kulmi doono nabadgelyo